السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أمان baa in qaxwo lagu cabo calooshaada oo maran. Maanta ii oggolaada inaan ka hadlo mowduuc aan ahayn mowduucyadii aad iga barteen. Mowduuc ka yara durugsan, ka yara baxsan mowduucyadii aad iga barateen. Maanta mowduuceenna waa mowduuc caafimaad waaye. Qaxwada ammaan ma tahay adiga oo calooshaadu ay maran tahay inaad cabto? Waa mowduuc caafimaad ah waaye. haddii ay tahay markii kugu horreysay booqashadaada youtube-keenna subscribe-ta like-ta iyo sidoo kale gambaleelka inaad furato si uu kuu soo gaaro muuqaalada aynu soo dhigayna insha allahu tacaala. maanta sidii aan horay mowduuca aan idinkugu hordhac ahaan idinkugu sameeyey waxaan ka hadlaynaa qaxwada oo in badan soomaalidu ay ka mid tahay dadyooga caadaystay cabitaanka qaxwada ama kafeega. caafimaad ahaan maxay u dhibaysaa qofka inuu cabo qaxwada isaga oo calooshiisu ay maran tahay, isaga oo gaajaysan, isaga oo baahan? bunku waa mid ka mid ah cabitaanada ugu caansan adduunka, wuxuuna bixiyaa faa'iidooyin caafimaad oo dhowr ah oo ay ku jiraan kor u kaca xoogga, hagaajinta waxqabadka ciyaaraha, iyo kor u qaadista shaqada maskaxda. iyadoo dad badan ay cabi karaan qaxwada, calool maranna ay ku cabi karaan dhibaato la'aan, ayaa waxaa jiro oo laga yaabaa inay dareemaan dadka qaar xanaaq iyo calaamado kale. bunku waa cabitaan aashita leh ama acids ah. haddii lagu cabo calool maran waxaa laga yaabaa inay kiciso caloosha, inay soo saarto asiid badan ama aashita badan. aashitada xad-dhaafka ah waxay ka xanaajin kartaa xuubka caloosha, waxayna sababi kartaa laabjeex ama dib u soo noqoshada aashitada. kafe'iinka waxay sidoo kale dejin kartaa dhuunta hoose ee hunguriga ee loo yaqaano les marka lasoo gaabayo afka qalaad. muruqa kala sooca hunguriga iyo caloosha, taas oo u oggolaanaysa aashitada inay kor u soo baxdo, taasoo keenta dareen gubasho oo laabta ah. cudurkaasina waxaa loo yaqaanaa GERD. dadka leh taariikhda laabjeexa, cudurka marka lasoo gaabayo loo yaqaano GERD ama mindhicirka xanaaqa IBS marka lasoo gaabayona loo yaqaano, ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay taxadaraan marka ay cabaan kafeega calool madhanna ay ku cabaan qaxwada macnaha ama bunka. si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in aysan jirin cilmi baaris dhammaystiran oo caddaynaysa in kafeega lagu cabi karo calool maran, in kafeega oo lagu cabaa calool maran uu keeni karo ama kordhiyo khatarta dib u soo celinta aashitada. haddii aad la kulanto laabjeex kadib markaad qaxwo cabto, isku day inaad cuntid cunto fudud ka hor inta aadan cabin kafeega. cunto ku haysanaanshaha caloosha oo cunto lagu haystaa waxay kaa caawin kartaa dhimista wax soo saarka aashitada. markaad kafeega cabto oo aad ku cabto calool maran, jirkaaga waxaa laga yaabaa inuu si dhaqso ah u nuugo kafe'iinka. kafe'iinka waa kiciyeyaasha dabiiciga ah, waxaana laga yaabaa inay keento dareemo walaac ama jitters waxa loo yaqaano. si kastaba ha ahaatee, kafeega oo lagu cabo cunto ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigto nuugista oo ay yareyso dhibaatooyinkan. isticmaalka kafeega ama kafe'iinka ee xad-dhaafka ah wuxuu keeni karaa walaaca, garaaca wadnaha degdega ah, hurdo la'aanta, madax xanuunka, dhiig karka, dhibaatooyinka dheefshiidka ku dhaco. dadka qaar ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaatooyin xagga dheefshiidka ah markay kafe'iga ku cabaan calool maran, sida dibiro, casiraad, lalabo, qalbijeex, shuban, iyo weliba isbedelada hormoonka ku dhaco ama ku yimaada. kafeega oo lagu cabo calool maran oo faaruq ah waxay u horseedi kartaa isbedel hormoon ah, gaar ahaan heerarka
heerarka cortisolka oo loo yaqaano hormoonka cadaadiska. Cortisolku waxay nidaamisaa dheefshiid, kiimikaad iyo cadaadiska dhiigga, laakiin heerarka xad-dhaafka ah ayaa laga yaabaa inay la xiriiraan dhibaatooyinka sida walaaca, xanuunada hurdada, lafo-jileeca, wadne xanuunka ku yimaada. Annagu haddii aynu nahay Soomaali, odayaasheenna waan ku qaxweynaa oo waan ku sheekeynaa kafeega. Waxaa laga yaabaa subaxdii marka aad soo kacdo inaad ku bilaawdo kafee. Daraasaddan waa sababta keentay in la darso ama lagaga hadlo mawduuca ah ma cabi karnaa kafee annaga oo caloosheenna oo ay faaruq tahay. Mawduucan haddii aad ka faa'iideen iyo mawduucyada ku tacalluqa caafimaadkan sida kafeega iyo waxyaabo badan oo aan soo wadi doono, haddii aad ka heshay oo uu ku cajab geliyey, keliya like-ta ha laga arko. haddii aydan ka helin mawduucyadan in aan soo badiyane dabcan dislike-ta ha laga arko. aadaa u mahadsantihiin. allah idin barakeeyo. salaamu calaykum.